laba mudane oo ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya iyo saraakiil ciidan ayaa la sheegay in xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan muddo ay uga xayirnaayeen ciidamo ka tirsan militariga Kenya. warar la helo waxay sheegayaan in laba meel lagu kala bariyo oo xal la qabtay oo laba meel ay kala joogeen lana ogolaan waayay in ay galaan gudaha wadanka Soomaaliya iyagoo Kenya ka soo gudbaya garaan gobolka Gado oo la sheegay in agab ciidan ay wadeen. Colonel Aadan Axmed Rufle oo kamid ah saraakiisha gobolka Gado ayaa uga waramay keenin xubnaha la xiray. waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan dibadda iyo daaqilba gaar ahaan waxaan salaamayaa bahda saxaafadda waxaan leeyahay sanad guud wacan waa 26 Juun oo ay saacada laga xigaan ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa kale Soomaaliya ayagoo barwaaqo iyo bashbasha inuu ilaahay lagu gaarsiiyo inta ka dhacdi 24 bishan Juun oo shalay ku aadanayd laba xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya lagana soo doorto gobolka Gado gaar ahaan degmada Ceelwaaq oo la kala yiraahdo xildhibaan Cabdi Cali Xasan iyo xildhibaan Jamaal Cabdirashiid Xaaji iyo saraakiil xoogga dalka Soomaaliyeed oo agab military u waday xoogga dalka Soomaaliyeed ee ilaalinta xuduudaha qaranka iyo la dagaalanka argagixisada baada wajeer ka dagay xildhibaanadii waa la soo qaaday Ceelwaaq Kenya markii la marayana sakartuu ninka xukuumadda Kenyaanka ah oo wata ciidanka ummadda Soomaaliyeed dhibaateeyo meesha labada xildhibaan ee saraakiisha ku xanibay oo Soomaaliya ma geynaysaan asagoo u geeyay Malaysiyaad waqooyi barakaaya ka soo jooga oo uu ku sheegay inay yihiin daraawiishta Jubaland agabkii militariga loogu talagalay xoogga dalka Soomaaliyeed ee wasaaradda gaashaandhigga ay dirtay waxay isku dayeen inay siiyaan Malaysiyaad ka soo jooga gobolka waqooyi bari kuna magacaaban daraawiish Jubaland taa waxaa diiday oo aan u mahad celinayaa labada xildhibaan iyo saraakiisha xoogga dalka ayagoo ku adkaystay degmada Ceelwaaq Soomaaliya oo ciidanka qalabka sida jamhuuriyadda ay joogaan shacabkii xildhibaanada soo doortay in la geeyo kadibna xabnahaabisnimadii baa lagu adkeeyay meesha xuduudda ciidanka iyagii qalabkii agabkii lagu siiyey labada xildhibaan iyo saraakiishii inta la kala kaxeeya kuwana kaambiga ku yaalo meesha la yiraahdo Dhamaajale oo doobley xal lagu barisiiyay kuwana Ceelwaaq baa lagu xabsiyay laakiin door badan ka bacdi waxaa lagu guuleystay inay xornimadoodii dib u helaan labada xildhibaan iyo saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed ee agabka uga qaaday ciidankanaga arrintaas saasay u dhacday marka xildhibaanadu xabsi miyay galeen oo ay ku bariyeen mise waxa way xabsi may gelin muddo ayaa laga yaabaa in xorriyadoodii ay ciidamadu Kenyaanku ka qaadeen ma baartay sida u dhacay xildhibaanadana sharafta leh aan dooranay lagana soo doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado haddii loo diiday shacabkoodii oo xor ah oo jooga degmada Ceelwaaq iyo deegaanadoodii inay soo booqdaan oo u soo qudeeyaan oo loo diiday ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee la dagaalamaya argagixisada difaacyada Ceelwaaq Buusaar Faafaxduun Gariley soo joogo intariskoodii sare ee Ceelwaaq joogay ay tagaan loo diiday dal kale lagu xanibay waa xabsi ma dhaama xabsi guri maaha waxaa xusid mudan xildhibaanada iyo saraakiisha haddana in xal la kala kaxeeyay oo kuwaba xero military ay ku oo dalka Kenya gudaheeda ay ku xabisnaayeen xal ay ku bariyeen maanta galinkii dambana ay ka soo duuleen dalka Kenya oo ay dalkeena si xornimo u imaadeen ilaahay baa ku mahadsan waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed ee u dabaaldegaya 26 waa ku siin doonaa fursadda iyo baaqaaga oo shacabka gadaal baan kugu dhigay waan ku siin doonaa waxaan ku weydiinayaa xildhibaanadu waxa tiri hub ama saanad ama agab ciidan bay wadeen ma ku wargeliyeen dawladda Kenya markay dalkeeda ay ka dagayeen inay halka imaanayaan oo ay u sii gudbayaan Soomaaliya aan ku saxay xildhibaanadu waxa la socotay saraakiil xoogga dalka Soomaaliyeed oo wada agab ciidan Amazon oo aan wada shaqayn gaar leenahay markaan ka reebna Kenya usraan qabo amar ka baxaydana adeegaas iyo agabkaas lagu qaaday oo lagu gaarsiinayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maadaama ayna aeroport lahayn degmada Ceelwaaq Soomaaliya taasay ku dhacday in dalka Kenya agabka lagu geeyo oo galaasho laga haysto
iyo ogaal iyo xiriir Amazon iyo dawladdeena aan agabka meesha lagu geeyay maxaa keena marka in ay geli waayaan oo gudaha Soomaaliya oo ay Kenya ka soo gudbi waayaan هذا waxaa keenay Kenya sidaan wada ognahay waxay la shaqaysaa shakhsiyaad gaar ah iyo group gaar ah oo diidan qarannimada Soomaaliya iyaduna waxaynan ogolayn qaranka Soomaaliya iyo xornimada iyo sharafkayada inay dhuxushanada jirato oo ay ka dhufsato dekadaha iyaga dadka shacabkaana ay xasuuqdo ururada xajirka oo xuduudaha lagu beerayana agabka iyo hubka rasaasta la siiyo ujeedadeedu waa taas waxaa cad oo aan marqaati le goob marqaati ay ka yiraahdeen waxay ku sheegeen daraawiisha Jubbaland dad aan u dharan goboladaas ee laga keenay NFD oo dee dabcan Soomaalidu way istaqaanaa gobollo kale ka soo jeedo in la siiyo ayaga warantaa tali waxay iga warantaa xubnaha xildhibaanada ah iyo saraakiisha la socotay hadda xagee ku sugan yihiin waad ila hadlayso way nabad imaadeen hadda waxay joogaan caasimadda Soomaaliya Muqdisho way nabad tageen maanta goor gaaban bay imaadeen caawa sida aan xogta ku hayo laakiin dacdarro fara badan iyo xornimo darro fara badan ay wadeen loogu talagalay ciidamada Soomaalida ee deegaanka jooga si nabad ah ku gaareen ilaahay ku mahadsan bacdana waxaan u mahadcelinayaa labada xildhibaan iyo saraakiishii xoogga dalka Soomaaliyeed ee laga soo diray wasaaradda gaashaandhigga ayagoo tahdiidaad xitaa lagu sameeyay oo la bancay in agabka asaga la dhaco oo la siiyo jamhado NFD ka soo jeedo ay si sharaf leh ku gaarsiiyeen waan u mahadcelinayaa mar labaad labada mudane ee ka soo jeeda degmada Ceelwaq Soomaaliya laga soo doortay reer Gado iyo saraakiishii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliskii soo dirayba mar labaad baan u mahadcelinayaa agabkii asaga ahna si nabad qab ku gaaray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ilaaliye xuduudeena sharaf kale iyo sharafka ummadda Soomaaliyeed ee jooga gobolka Gado Korneyl Aadan Axmed oo rufle loo yaqaano laba mudane oo ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya iyo saraakiil ciidan ayaa la sheegay in xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan muddo ay ugu xayirnaayeen ciidamo ka tirsan militariga Kenya warar la helo waxay sheegayaan in laba meel lagu kala bariyo oo xal la qabtay oo laba meel ay kala joogeen lana ogolaan waa in ay galaan gudaha wadanka Soomaaliya iyagoo Kenya ka soo gudbaya garaan gobolka Gado oo la sheegay in agab ciidan ay wadeen Korneyl Aadan Axmed Rufle oo kamid ah saraakiisha gobolka Gado ayaa uga waramay keenin xubnaha la xiray waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan dibadda iyo daaqilba gaar ahaan waxaan salaamayaa bahda saxaafadda waxaan leeyahay sanad guuro wacan waa 26 June